gudoomiye ku-xigeenka degmada Buurdhuubo ee gobolka Gado ayaa sheegay inuu bogaadinayo hawlaha ay dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka wado deegaanada maamulka Jubbaland sida warbixinta warkan mar kale uu ku eegayo wariyaha Mawlid Jaamac Farax Mawlid Galo gudoomiye ku-xigeenka degmada Buurdhuubo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali Sambuur oo wareysi siiyay telefishinka CW maruu ka hadlayay xaaladaha ka jira Buurdhuubo ayaa hambalyo u diray xukuumadda Soomaaliya oo ku aadan deyn cafinta Soomaaliya gudoomiye Cabdiraxmaan Sambuur oo soo hadal qaaday xaaladihii ugu dambeeyay ee ka jira Jubbaland ayaa sheegay in 7 sano ee maamulka Jubbaland ee Kismaayo uu jiray magaalada Buurdhuubo ay banaanka ka taagnay Jubbaland oo aysan wax dheefa iyo nidaam midna aysan ku qabin marka laga tago xaqiraad iyo bogaadin aan hawada u marinayno dawladda federaalka ee Soomaaliya madcelinta dawladda federaalka ee Soomaaliya sidoo ogtihiin annaga waxaan nahay dadka ku nool degmada Buurdhuubo dad beeraley ah nabadda jecel aad iyo aad nabadda u tamadiyo inaan nabadda jeclaanana waxaan ugu sii qasbay annaga dad beeraley ah nahay dadka beeraleyda ana nabadda le'eg arabna horumarka qaranka uu wado iyo tilaabooyinka qaran ee quruxda badan oo ku qaracnay oo socdo in qaranka Soomaaliyeed uu dhib u lahaado degmada Buurdhuubo marka asaas leeyahay degmada Buurdhuubo nidaamkii ka jiray Jubbaland oo inta muddada 7 sano shaqeynayay Buurdhuubo xaq iyo xuquuq midna kuma lahayn banaanka ka taagnay wax xaq ah iyo wax xuquuq ah iyo wax maxaan ku iraadaa xurmaha oo degmada Buurdhuubo ay Jubbaland ku dhaxlayd ma jirin sidaasi oo ay tahay Jubbaland kamid ahaanshaheeda oo ga carari meeyna ayuu yiri mas'uuliyiinta Kismaayo oo waqtigoodii dhamaaday laakiin waxaan ku faraxsanahay dhaqdhaqaaqyada ay dawladdu ka wado deegaanada Jubbooyinka saasoo tahay Jubbalandnimada ma aha inaan uga cararno nidaamka asaga ahaa oo xaq iyaga beerdariyay Jubbaland urad baan u nahay annaga urad u ah annaga ma garanaysaa Jubbaland abtirkeeda ka soo gala Jubbalandnimada iyo dawlad jacaylka iyo nidaam jacaylka kama cararayno laakiin waxaan sheegaynaa nidaamka Kismaayo ka jiray 7 sano 7 sano oo jiray Buurdhuubo xuquuq la'aan bay ahayd sidoo ogtihiin degmada Buurdhuubo oo gacanta dawladda ku jirtay wax ka badan 7 sano ama 6 sano golaha baarlamaanka dawlad goboleedka Jubbaland uma fadhinin xubno matalaada waa la xaqiray Buurdhuubo waa la xaqiray degmanimadeedii baa la xaqiray baarlamaanka laga qadiyay wixii Jubbaland isimkeeda ku soo baxay oo dhan baa laga qadiyay waligeedii Allaheed wax Jubbaland ka yimid ma soo gaarin Buurdhuubo asal iyo farac waxay u tahay oo ku abtirsataa system kasta oo jiray oo dawladeedu soo gaaray habka federaalka oo central government-ga bas waa wali wax Jubbaland la yiraahdo oo annaga aan aragnay ma jiraan magaalada Buurdhuubo waxay ku taalaa koonfurta Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gado waxayna 50 kiiloomitir u jirtaa magaalada caasimadda ah ee Garbaharey Mawlid Jaamac Farax Mawlid Galwaaq warbaahinta CW magaalada Cabudwaaq ee bartamaha Soomaaliya